isbeddello waaweyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya kuwaas oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo Soomaalida kaleba ku fikireen inay dhici karaan xilligan kadib qalalaase ka dhacay magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3 qof waxaa 6 bishan lagu cadaadiyay madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar inuu xilkaasi ka dego isagoo xilkaasina ku wareejiyay Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase hase yeeshee maalmo gudaheed waxaa magaalada Addis Ababa la isugu yeedhay xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee Soomaalida Itoobiya waxaana xubnaha xisbigu ay 12 bishan xilka guddoomiyenimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya Axmed Shide 22 bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meel gaarka ahayd ee xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilkacase kadib markii xisbigu ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeday siyaasadii Cabdi Maxamuud Cumar 26 bishan waxaa magaalada Jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyay 7 xubnood oo ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar maalintii shalayna ciidamada Itoobiya waxay qabteen Cabdi Maxamuud Cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah haddaba isbeddeladan ka dhacay gobolka waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Itoobiya bishii Abriil ee sanadkan isbeddelkaas oo uu talada ku qabtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammayntii colaadda Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo ururo kale oo la dagaalamaya xukuumadda Itoobiya xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruucada ah oo gobolkaasi ka soo jeeda horeyna waxa uu uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed WSLF wallahi waxaan aaminsanahay uu u diyaarsan yahay isbeddelkan uu inaha aan ka fahmay waxa weeye in nabadana la xoojiyo furnaanta maxay leeyahay xagga dimuqraadiyaddana loo dadaalo furnaantu waxaan u maleynayaa Soomaalida dadka ugu soo aad uga suuroobi karayso inay ka mid tahay Cali Maxamed Kunay waa afayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ka soo jeedaa magaalada Mooyaale waxa uu soo dhaweynayaa isbeddelada dhacay waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub in isbeddel cusub la sameeyo Soomaalida deegaanka joogta qof hanan kara mas'uuliyadda kana danqan kara dareenka mas'uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro in isbeddel ka imaado ayaan rajaynaynaa Mawlid Ahmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalkan Mareykanka waxaana uu ka soo jeedaa gobolka waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hogaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ah iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan haddaba waxa loo baahan yahay gobolka in la sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin dadku markay u arkaan deegaanada degan gobolada ka bilaabmaya Dirdhabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo waxay noqonaysaa markaa inay dawlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oo xaqina raadsan karno dhibaatooyinkii dhawaan dhacay maxaa asal u ahaa dhibaatooyinkii dhacay horta dhibaatada ugu weyn ee dhacday waxay ahayd dadkii Soomaaliyeed iyo Oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weyn ka dhaxayn marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baag lasku reer yaro jiri bay isku qarsan jireen heerkan la gaarsiiyay qoomiyadda Oromo iyo qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka bilaabma 1400 oo kilomitir wadaag inay mar kaliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi Oromo meel kasta xad kala wadaagaysay Soomaalida ama Soomaalidu kala wadaagaysay inay mar kaliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EPRDF ee xukun oo kala qaybi ahaa isla markaana taasoo kaliya aan hayne Soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qaybinayay mid ka mid ah
dad badan oo khubaro ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sannadkii 1991 markaasi oo xukunka laga tuuray Mengistu Haile-Mariam kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Itoobiya EPRDF ee ay majaraha u haysay jabhadda TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku. Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga horeyna waxa uu soo ahaa xogayihii arrimaha dibadda ee WSLF. waxa ka lumay waxay u lahayd dhaqankan haraaga ee qabaliga ayuunbaa ka lumiyey iyo isqabqabsi iyaga dhexdooda ah oo qabaliga ah jabhado magac qabiil wada sitaa baa abuurmay waxayse tahay kulkii dudaba shaki lagu qabtay ay ONLF hoggaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiyan iyo barnaamijkeedii ay wadatay waxaa gacanta hoggaanka qabsatay ONLF xagga waxaa haddana abuurmay jabhado kale oo waxay noqon kartaa reer waliba jabhad buu ka furtay 13 jabhadood baa jiro isugu yimid u bislaansho la-aan iyo waxaad moodaa taariikhdii ay lahayd WSLF halgankii hubaysnaa oo iyo siyaasadoodii ahaana waxaa aburiyey oo lagu suntay waa Soomaali weyn waa askartii Maxamed Siyaad Barre waa magaca diina ubaba magacani waa galbeed iyo magac maaha waxay dalkiiba ku soo baxay magac laawe wuxuu ku soo baxay maxaan ku dhahdaa xasimad laawe xasimadda harar bay ahayd all that confusion kaasoo jabhadihii lamidka ahaa ka hana qaadeen waxaa ragaadiyey taasaa ragaadisay wayna ka kori laadahay Soomaalidu uskagaa qabaliga ah. hase yeeshee siyaasaddii gobolka iyo tii amniguba waxa uu isbeddel ku yimid sannadkii 1994 markii ay iskhilaafeen ururkii hoggaanka u ahayay maamulka gobolka ee ONLF iyo xisbiga ERDF ee ka talinayay waddankaasi. khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee laysku khilaafay ay ka mid ahaayeen aayakatashiga gobolka iyo faragelinta dowladda federaalka Itoobiya ee gobolkaasi ay ku haysay. Cadaan Hirmooge waa afayeenka ururka ONLF waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhowaan dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta. horta EPRDF ama TPLF waxaan kulanay 89 baan Khartoum ku kulanay dowladda Suudaan bana dhexdhexaadisay waxaa geli weyday waxay ku doodeen cid aan Eritrea ahayn oo Itoobiya gumaysatay ma jirto ugu dambeyn waxay dhaheen dastuurka EPRDF iyo TPLF waxay ogol yihiin ummadaha in aftidooda aayahooda la weydiiyo oo rabta ay la joogto qolada ka bixi karto marka uma ictiraafsanin Soomaalida in la gumaysto sidaan Itoobiya Eritrea ahayn lama gumaysto oo ogol lahay xorriyad on the spot ama toos ah uma ogoli sidaa daraadeed waxaan ogol lahay in aftida la weydiiyo marka gobolkii maamulka nala dhisa dowladda nala dhisa gobolkiinina maamul u samaysa haddii uu dalbado dadkiina waa la ixtiraamayaa waan ku heshiin weyn arrintaa waan diiday inaan dowladda la dhisno annagoo is abaabulayna oo jabhadii Soomaali galbeed oo burburtay iyo hadhaageedii toosinayna oo weli xoogaysanay iyo taliskii durba jabay shirkii Khartoum shirkii Addis Ababa dib u heshiisiinta Itoobiya loo bixiyey Eritrea ku go'aysay malak maamulkiisa lagu dhisahayay inaanu ka qayb galaan u tagnay Soomaali galbeed ay xamar ka soo qaadeenna way soo qaadeen way isku qaseen awraaqdii Soomaalida way farabadiyeen 13 urur iyo qabiil walba way garab yaaciyeen miisaankii ONLF hoos bay u dhigeen way la dagaalameen kadibna waxaana lagu dhexdhexaadiyey inaan gobolka iyo maamulka meelgaar u samayno heshiiskaas 12 qodob aan gaadhnay malak iyo annaga hal qofna baarlamaankana loogu daray meelgaarka ahaa dadka Soomaalida aad baa beriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan samayno haddana way noo suurageli weyday askartii haysatay gobolka TPLF ka hor timid warqadii malak aan la seexanay way diideen wayna jeexjeexeen kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinkii baan galnay doorashadii 84% ONLF baa ku guuleystay maamul baan dhisnay maamulkii markuu 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meelgaarka ee Soomaalidana aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dib bay u dhacsan yihiin waa la horumaray xafarta iyo Soomaalida Tigreega intaas ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay 15 urur ee Soomaalidana waan isu keenay hal guddi baan u samaynay inaan maamulkana wada taageero ay ka talintana wada taageertaano Soomaaliyahan isku dubnaano hal guddina lahaano si
marka cabdimajiid iyo raggii soomaaliyeed etoobiya la socday markay ku guuleysan waay etoobiya xisbiba ay hal meel isugu yimaadeen hal guddi oo hal afayaan u yaallay oon la xibin ka tahay oo dadka soomaaliya difaacaysa iyo xabad nagu bilaabeen guddoomiyihii onlf bay ku weerareen wardheer bishii february 22 xaruntii onlf baa taangiya lagu weeraray itixaadkii osma deganaa farijiqood baa la weeraray xabad meedhan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta mid ka mid a dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii abril 2007 markaasi oo jabhadda ONLF ay weerartay goob ay dowladda Itoobiya ka qodaysay shidaal kuna taala deegaanka Coballe oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga halkaasi oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Itoobiya Itoobiya waxay weerarkaasi kaga jawaabtay guluf militari oo culus oo hay'adaha xuquuqda aadanahu ay diiwaan galiyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuhunsanaa inay gacan saar la leeyihiin ururka ONLF gulufkaasi waxaa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku samaystay dhinaca kale waxaa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hogaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyay dhinaca dhismaha wadooyinka iskuulada cisbitaalada iyadoo dhawaanna gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horeeyay bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aanu isbeddelku ka dhicin Itoobiya waxaa wareeg kale oo wadahadallo ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhadda ONLF iyo Itoobiya wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo bilowdeen sanadkii 2012 hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Malla Zenawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga samaynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi halka ONLFna ay ku adkaysatay aayakatashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda dhawaanna waxaa la filayaa inay wadahadallo la gasho dowladda Itoobiya hase yeeshee su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalidu inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suuro gali kartaa inay ka go'aan Itoobiya Cadaani Hirmooge ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida isbedeladan ugu dambeeyay gobolka ismaamulka Soomaalida intaysan dhicin su'aal aan ku weydiiyay waxay ahayd siday ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirto inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin mar kale aan ku weydiinayaa su'aashaas saad u aragto waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhadda inay usoo bandhigto oo shirka ku soo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan sahankuna hadda saasuu noo sheegayaa annagu waxaan jecelahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan ma gooni baad u istaagaysaan ma walaalihiin baad ku biiraysaan sidaa in loo dhigo marka ONLF laakiin maxay u ololeyn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka aayihiin ma waxay u ololeyn doontaa ONLF inay gobolku Itoobiya ka simid ahaado ma inuu gaar isu taago mise inuu Soomaaliya ku biiro ONLF waxay u ololeyn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan inay gooni isu taagaan cuqdado badan baa laga qabaa inaan Soomaali ku biiro dadka muxuu ahaaye dawladaha isticmaariga ah ee gobolka Geeska Afrika fiiriya in Soomaali isku biirto ma jeclo wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya sida ma kamid ahaanaysaan haddaad kamid ahaanaysaan sidee iyo habkee baad doonaysaan ma isu taagaysaan gooni annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecel lahay maxaa yeelay kolka Soomaalida aan ku biirin aan gooni istaagnaba way noo suura gelaysaa waxaan qabnaa inaan Geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo derisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin lahaa inaan nahay inuu dabar nagu xidhnaa laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin isku dhinacna ay wax ka wada arkaan
waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF sida uu ku doodayo Cali Maxamed Kunaay oo horey u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida. ONLF-tu dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii laakiin may qaadanin sababtaas ayay maaragtay waddanka ka baxeen wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay samaynayeen ayba samaynayeen waxay sameeyaanba laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan magaca ONLF waa runtii markii la eego magaca guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan. waxa kaloo hogaamiyaasha ONLF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu ka sii mid ahaado Ethiopia waxyaabaha ugu waaweyn ee u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaanna waxa kow ka ah in dadka loo ogolaado aayakatashi. maxay kula tahay arrintaas? horta marka koowaad arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha waa hal deegaan bay weeye matalan marka siyaasadda xagga go'itaanka la eego guud ahaan waxa Ethiopia u yaala 9 kilil u yaala ayay noqonaysaa procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in la iska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taalo dastuur buu ku dhisan yahay federalismku. marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba dan ma ugu jirtaa Ethiopia inay ka sii mid ahaadaan mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan? inay Ethiopia ka tagaan iyo inay ka mid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa. Muuse Sheekh Xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Ethiopia mar walba la gacan bidixayn jiray waxaase uu leeyahay xilligan uma suurtageli karto gobolka Soomaalida inay goostaan waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaabo aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan. anigu waxaan aaminsanahay arrintaas si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas marka la wajahayo in dastuurka la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa hadda horna waa la isku dayayo wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin. haddii laakiin laga qaado afti sidee bay kula tahay inay dadku u codayn lahaayeen? anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awareness-kooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro waxaan u malaynayaa inay waktigan imika aan joogno Ethiopia inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan waayo inay ka go'aan laba choice baa markaa iman inay dawlad goonidooda keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan haddee labadubana mataqaanaa inay waktigan xaadirkeen joogno aynan munaasab ahayn oo suuroobi karayn baad moodaa. ma kula tahay ONLF inay dabcan ONLF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiyo lagu soo laabto ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONLF inay hogaamiso gobolka? anigu waxaan u malaynayaa waktigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan isagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ay ka soo martay experience-kii soo maray ee u dambeeyey oo aad iyo aada u foolxumaa inayna Soomaalidu isku raaci karaynin oo raalli ku noqonaynin inay ONLF hogaamiso baan u malayn xataa aaggan magaca ay sitaan ee ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweynin oo aada raalli loogu noqonayn baan u malayn hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u footayn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu doonaba ha noqdee tiro ay baarlamaanka ka soo gashay inuu noqon karo way ila tahay. wax ma tari lahayd haddii ONLFtu ay dhahdo tusaale ahaan qasab maaha magaca ogadeen waan ka tegi karaa dhib male waa magac ee soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadno soomaalinimo.
waan u malaynayaa inay aad wax u tari lahayd waayadii hore laakiin ku fiicnayd. hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay. imika waanu ka tanaasulay oo waddanka Soomaali baa la yidhaahdaa waanu khaldanayn hadday yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. laakiin kolley faa'iido way lahaan lahayd aad wax way u tari lahayd oo Soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magaca Soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa. laakiin Cadaani Hirmooga waxa uu leeyahay jabhaddu casharro ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horaantii sagaashameeyada, waxaana markii ugu horreysay uu sheegay idaacadda VOA in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhadda si Soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato. magacu wax aayad quraan muqaddas ma magaca dalka iyo dadka ka muhiimsan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed ba magaca ka weyn. haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo. magaca dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku raali yihiin oo ku raaxaystaan oo difaacdaan oo sheegtaan oo lahaanayaan buu noqonayaa. wasiilo gobonnimo doon oo Itoobiya u samaysanada ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jilib Soomaaliya ama shakhsiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu xumeeyo Itoobiya in lagu la dagaalamo aan u qaadanay. marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dhulkaasi meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo hanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa oo qofka Soomaaliga uu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareemo uusan inuu dheer yahay inuusan dareemin. taasaan anagu aaminsanahay. Soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo urur iyo ka weyn. waxaan u dagaalamaynaa inuu dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda. ma aha magacaan kusoo dagaalanay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min muxuu ahay wax la caabudo. ma asayada kama gobolka ay Soomaalidu degto waa mid wehel u soo noqday colaado badan oo dhiig uu ku daatay. kastoo dagaalada u dhaxeeya ONLF iyo Itoobiya waxa uu ahaa gobol ay 2 jeer ku dagaalameen dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. waxa kale oo ku dagaalamay Itoobiya iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. waxaa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhul ballaarsi ay sameynayeen dawladihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya sida ay ku doodaan taariikhyahanadu. tusaale ahaan waxay sheegaan khubaradu in dhul ballaarsiga Itoobiya uu la bilowday boqortooyadii Menelik labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sanadkii 1891 kadib waxa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guuleysatay gumaystihii Talyaaniga. waxaa sanadkii 1948 ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogaadeen ku wareejisay dawladda Itoobiya iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Itoobiya qaybtii kale ee lagu magacaabi jiray Howd and Reserve Area. waxaana wareejintaasi ansixisay qaramada midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu. hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka. go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac bisayl la'aan iyo istiraatiijiyad la'aan. xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi, balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalad ay iska wada dhex arkaan inta degta gobolka ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.